munaasabad ay soo qabanqaabiyeen naadiga akhriska iyo qoraalka ee Timcadda Readers isla markaasina lagu soo bandhigayay buug la yiraahdo Qumanaha Qisooyin oo uu qoray qoraaga da'da yar ee Bilo Cumar Daahir ayaa lagu qabtay hoolka dawladda hoose ee degmada Gabiley. munaasabadani oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa waxa sidoo kale ka soo qayb galay xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka degmada Gabiley, xuqaal, waxgarad, abwaano iyo qaybaha kale ee bulshada. waxaana munaasabadaasi mas'uuliyiintii ka hadashay hadalladoodii kamid ahaa waxa ku qoran 100 qiso oo ka waramaya dad khaatimadoodii lagu gabagabeeyay calaamad iyo dad khaatimadoodii lagu gabagabeeyay calaamad wanaagsan taas oo tusaale wanaagsan u ah noloshiisa qofkaas caanka noqon doonto waa ka yaro duwan sektaradii iyo qaybihii qoraalada hore wax laga qori jiray hadday noqoto dhiirigelina hadday noqoto qoraallo naadaysa ama sheekooyin ah hadday noqoto qoraallo arrimaha bulshada ah waa buug ka waramaya balcaynka qofka ay u ekaan doonto noloshiisa rasmiga ah waana buuggii u horreeyay baan oran karaa ee dhacdada laga qoro ama qoraallo noocaas ah lagu ururiyo taas marka laga yimaado buuggaas wuxuu igu dhashay sanadkii 2016 dhamaaday bilowgiisii intaana uu soo socday oo maalin walba lagu soo darayay bil ka hor ayuu dhamays noqday waxaan ila noqotay maadaama aan reer Gabiley ka soo jeedo inaan buuggaasi Gabiley ku daafuro gobolada kalena ay u dambeeyaan Timcadda Readers aad waxaan ugu mahadnaqayaa naadiga Timcadda Readers oo markii aan soo bandhigay fikirkaasi uu yiri isla sidaasaad kaga mid tahay xubin naadiga ah maadaama aad intaaba garatay buugu iyo tiraab waxa la yiraahdaa hadalka caadiga qofku hadduu maskaxdiisa isticmaalo oo wax soo saarana wax la abuur marka waxa la yeelay bilo wuxuu jira suugayahanada marka buugan qoraalkiisu wuxuu naga caawinaya sida muuqata qisooyin badan oo hore soo dhacay oo inaan haynin mar hadday ku jiraan inaynu qisadii markaynu akhrino iyadoo socoto markaynu soo marto inaynu garanaa laga yaabaa markay ugu yartahay qisadaas shanta buuga oo horeeyay halkan ka iibsanayo shantii buuga oo horeeyay malaacid oo teemay in baan marinay muuqata buug aad iyo aad u waafiyo oo si fiican looga soo shaqeeyay oo kullu wax badan ka hadlaya sidaan la wada soconno waxa weeye marka qoraa ama akhriska laga hadlayo waxyaabaha runtii muhiimka waxa weeye bulshada inta badan horumarka gaadhaa waxa ay ku artigsataa wax akhris cilmi iyo qoraal intaba marka buugga Timcadda waxaan halkan ama caawa ka cadaynayaa in runtii horumarkii gobolka Gabiley ee inta badan lagu taamayay in ay gacmahooda ku jiro xubnaha naadiga Timcadda shaqada fiican ee hayaan runtii bishan oo kaliya 2 jeer ayay idin soo bandhigeen barnaamij waana runtii waxaa loogu farxo naadi waddanka ku yaalla oo bil gudaheed 2 jeer xaflado noocan ay idin qabta lama arag weli naadigiina mooyaane hambalyada waa leeyahay saaxiibkay bile waxaana leeyahay dhalinyarada faraha badan ee halka joogta waxaan ku dhiirigelinayaa oo ku boorinayaa inay wax qoraan Sakariya Nuux Ibraahim waa Beri TV gobolka Gabiley.